warbaahinta dawladda Itoobiya xaqiijiyay intii afar sarkaal oo uu ku miday taliga ciidamada dalkaas iyo reekuwaysan dileen Madaxweynaha gobolka Amxaarada ila taliishay sara iyo saasoo kala askarta dileen waybana saacadaha dareer la filaha inta shirjara ay soo qabada ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed Ali ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy ay horeen sheegay intii taliga ciidamada difaaca ee dalshay la toogadi waybana iyo toogadeena dad fadaayantiyo afgambigii gobolka waqooyi ee Amxaarada Abiy oo telefishinka xukuumadda u qabo dareeska ciidamada iyo sheegay in dhowr sarkaal oo kale laga dilay weerar ku dhacay caasimadda gobolka Amxaarada marsi horeeyay xukuumadda way sheegtay intii afgambi fashilmay uu ku dhacay gobolka Amxaarada ee Itoobiya wararka way basaaso kariyo sheegaan intii qadka internetka uu dalkaas go'sanya wasaaradda arrimo banaanka dalka Itoobiya sheegtay intii ku war hayta warar ku saabsan rasaas ku dhacay magaalada caasimadda Addis Ababa Abiy Ahmed Ali sanadkii hore la dooraday wayban uu saha afjaray cadaadiskii ku jiray Itoobiya wayban saasoo kale uu maxaabiisiyo ka jiran siyaasiyiin oo ku xiranayeen qaybo ku mid ah Itoobiya balse sida qaramada midoobay sheegtay qalalaas qowmiyadeed iyo wali ku isboonaaday dalkaas Itoobiya taas oo sheentay intii 2.4 milyan oo qof iyo barakacay